المتسابقة منيرة عبد الفتاح عبدي من دولة كينيا، والقراءة برواية حفص، فلتتفضل. gabar Soomaaliyeed ayaa kaalmaha hore ka soo gashay tartanka Quraanka Kariimka ee heer caalami. Muniira Cabdulfataax Cabdi oo ay da'deedu tahay 13 sano ayaa guul lagu naaloodo ka soo hoyisay tartanka Quraanka Kariimka ee lagu qabtay magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Tartankaasi ayaa waxaa ka qayb galay arday ka kala socotay caalamka oo ay ku jiraan kuwa Soomaaliya. بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. gabadha ayaa waxay wax ka barataa dugsiga hoose dhexe ee Mus'ab Educational Center ee xaafadda Islii deegaanka Kamakunji ismaamulka Nairobi. agaasimaha guud ee xarunta waxbarasho ee Mus'ab Educational Center Macallin Jaamac oo aan xafiiskiisa ugu tagnay ayaa nooga warbixiyay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray markaska. Muniira Cabdulfataax Cabdi ayaa u mahadnaqday macalinkeeda iyo waalidkeedu ay sheegtay inay kaalin weyn ka qaateen guusha ay gaartay. qaybta gabdhahana 3 qaybood oo ugu horeysay dhamaan anaga u baan ahaynay alxamdulillah kaalinta koobaad iyo kaalimihii ugu horeeyay kulli anaga ahaynay. marka waxa kale oo Ilaahay noo suurgalay in aan ka qayb galino musaabaqaadka banaanka kadalika. Rwanda ayaan u dirnay 2019 kadalika arday kaalinta koobaad iyo kaalinta afraad laba wiilay inay kala galeen alxamdulillah. Tanzania waa u dirnay kadalika, Zanzibar waa u dirnay sanadkii soo dhaafnay ardayda gabdhay wiilalba ma sha Allah. sanadka hadda soo dhaafnay 2021 hadda musaabaqadii Dubai ugu dambeysay iyo 2019 saddex sano adiga 2019 2021 2022 intaba musaabaqada Dubai qaybta markana waa ka qayb galnay oo caalamiga ahayd runtii 2021 hadda ramadaankii soo dhaafnay musaabaqada hadda maanta tii ka horeysay number 3 ay soo gashay gabadha Kenya mathalaysi oo Mus'ab ka socotay Muna Cabdulfataax la yiraahdaa. gabadhaas waxay ahayd class 8 hadana runtii ee imtixaanka musaabaqada ka qayb galaysay Dubai. markay imtixaan ka soo laabatay KCB u fariisatay max fiican oo aad u sareeyay ku guuleysay 384 mise 86 ay heshay runtii meelahaas ma sha Allah. sanadkan way ka qayb gashay gabadhan kala Muniira top 10 ay soo gashay ayadana. Muniira ayadana kadalika runtii waa gabar yar oo iskuulkana way dhigataa qaybta iskuulka way wadaan class 6 ardayda hadda u fariisanaysa waa imtixaanka. ما شاء الله قرآن كان وهذا أركيسين سيد قرآن وآخر سين ما شاء الله طبتين يسوق الشيء قال لسه ديالك سوق بوليستي بفضل الله ثم بجهد أنا بحين هاينا شغفي عن رنت ماشي كسعة الحمد لله وفرح سنة هاي امتحانك وحق سوق يبقى الشيخ فاطمة بنت مباركة وحقيقة فرح وين انت ماشي استجع وكرسي كفديستي ونمبر 6 ذاك صهيلة الحمد لله وكفرح سنة وحكست quraanka xifdintiisa adeeg ma ahan waa hadaa dadaashi waa keeni kartaa sifadeed waa inta ku dadaashi xifdis. agaasime Macallin Jaamac ayaa sheegay inay dadaalkooda ku mutaysteen guushii ay gaareen oo uu sheegay inaysan ahayn markii ugu horeysay oo tartanka Quraanka Kariimka oo heer caalami ay ku guuleystaan. markaska ayaa sidoo kale guul la taaban karo ka gaaray tartamada dalka bariga Afrika iyo kan magaalada Nairobi oo xarunta dhexe ee markaska. qaybta gabdhahana inta badan nashaataadka horta waxaa ku badan gabdhaha iyo wiilasha marka la fiiriyo waxbarashada gabdhaha runtii aad u nashaad badan oo inta badan waxa weeye wiilasha markay ciyaar iyo kubad iyo waxyaabo ay aad ugu fikirayaan gabdhaha shaqada u dirtay inta badan way qabanayaan runtii horta
gabdhaha in xoog la saaro wax la bara aniga waan ku aad baan ugu dardaarmi lahay sababta gabdhaha aad ay u dadaalaan wax la bara waxa way baranayaan laakiin labadaba waan aadna musaabaqada marka hadda aan ku sheegay Rwanda waxa ka qayb galay oo kaalinta koobaad iyo kaalinta afraad soo galay waa wiil ma gabdho ma aha musaabaqada Mombasa ardayda kaalinta koobaad soo galaan inta badan wiilasha waaye sigiska iyo musaabaqadan madalada ka dhacday kadalika way galaan ma kala liitaan laakiin gabdhaha Dubai aaday qaybtan Imaaraadka ayaa qaybta gabdhaha ayaan runtii xoog saarnay qaybtaas leeyahay fursad aan ku helnay qaybta ayadaan fursad ku helnay hooyada dhashay Muniira oo la yiraahdo Deeqa Mukhtaar ayaa ka hadashay guusha gabadheeda iyo waqtigii ay ku soo bixisay Deeqo ayaa sheegtay inay si weyn ugu faraxsan tahay guusha ay gaartay gabadheeda iyadoo gaar ahaan xustay sida ay gabadhu ugu soo dhalaashay xifdinta Quraanka Kariimka waxa ay xustay inay ka caawin jirtay gabadheeda dhanka duruusta iyo xilliyada ay xaadirayso iskuulka qaar ka mid ah maamulayaasha heerarka kala duwan ee markaska Muscab ayaa aad ugu farxay guusha ay gaareen ardaydooda isla markaana ka warbixiyay barnaamijyada kala duwan ee ardayda u hayaan lagu baranayaa yani culumtii oo sharciga iyo culumtii oo luqada carabiga labada waa lagu baranayaa marka waana sabti iyo xad laakiin hadda waxaan yani rajaynaynaa insha Allah in oo maartay weegi shanta bari oo sabtiga ilaa arbacadi in maartay kaamil noqon doono ayaan rajaynaynaa marka hadda يعني waxaan ku furnay 3 fasal laakiin hadda wuxuu noo noqday ilaa 5 fasal oo qayb oo waxaan ku soo darnay oo la yiraahdo marxala at-tahdhiriya oo bixinay oo dadka oo ducafada oo si fiican wax u soo baranayna hoos aan ugu soo dhisayno iyo 4 marxalo oo maartay kor iyo maartay hadda noo furan ardada dhigatana taqriiban hadda waxay ku dhaweeyeen 100 oo kale way ku dhaweeyeen oo waxaan u badan markaska Mus'ab bin Umayr ardaydiisa ayaa u badan iyo kuwa kale oo kharij ka imaadeen way iskugu jiraan ardaydaas waxyaalaha miisada ay leeyihiin waxa kamid ah badi 90% waa arday oo xufaad ah oo Quraanka Ilaahay xifdiyeen marka culumta aan baraynana ma sha Allah yaani si fiican ay maartay u bartaan siin sheegnay maxadkan ama iskuulkan markaskan Mus'ab bin Umayr waa markas mutakaamil ah oo ka kooban iskuul integrated ah iyo siis doctorka sheegay iyo maxad oo culuum sharciya lagu barto oo sabti axad ah iyo school secondary oo gabdha marka aan qaybta iskuulka oo integrated ka qaybta islaamiga ayaan u weynahay maartay waxaan dhignaa mawaad fara badan luqada carabiga ayaan maadaama oo bariyahan ilmi iskuulka maada luqada carabiga la soo kordhay maadadaas ayaan xoog saarnaa luqada carabiga مواد كلو إسلامي كأسي توحيد كي فقهين وان أقدرنا قيب تاس أيان جوا ومارتي المه كدسنا رنتي المها ما دام يسكول كإنتجريت هذه هاي وسكول لبضع نلعب حوك سعرة قيب إسلامي كسي عنق هذا ومجو كتخرج على سكول كي ونقض عنق عربي جن مارتي فهم أيه ودينتي أقانا ومارتي لبضع شهادة كقاته ورك قيب تاس أيان جوا أسبابته لو سو كورينا كله وقرنيسان ما داموا علمه مسلمينتي سكول الذي أنت مارتي أي باتين إني مارتي سكول الذي لو سو كوري قيبة إسلامية أو دينتي علمه لقد لسه أو نقلان هذا وحنو كبارتي ماشي مو كبحايا دينتي لبض نعم قرناي معها مركي وهرسي وأرديد الصومالي دا أي قولة كسوهيان ترتنك قرآنك كريمك إهر عالمي